isbaacsiga Mareykanka iyo Shiinaha geeska Afrika ma ka dhigi doonaa bugcad dagaalka saddexaad ee dunidu ka dhaco loolanka u dhaxeeya labada dhinac yaa u dhaxayn doona oo ku qurbaxaya waa tabinta warbixinta aynu ku eegayno dhowr dhinac oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka Itoobiya dalkan sanad iyo maalmo waxa ku holcaya dagaal wajiyo iyo midaba kala duwan marba yeelanaya xaaladuna waxa ay ku sii durkaysaa in dagaalkan si cad isugu bedelo mid saameyntiisu ay gaarto gobolka oo dhan dhinaca kalena ay ku loolami doonaan awoodo ka madax bannaan jilayaasha tooska ah ee 13 bilood ee la soo dhaafay sida weyn isugu hardinaya masraxiyada dagaalka inkasta oo TPLF si weyn warbaahinta reer galbeedka iyo Mareykanka wararkooda u suuq geeyeen toddobaadkii la soo dhaafay ilaa ay ku dhawaadeen in la shaaciyo inay qabsadeen Addis Ababa isagoo askariga hubaysan ee TPLF ama OLA ee ugu sokeeya u jira masaafo ka durugsan Addis Ababa 300 kilomitir haddana dagaalka warbaahintu kaabiga ayuu ku hayay guriga 4 kiilo ama kilomitir 4 ee looga taliyay Itoobiya hadda isbedela xagga jihooyinka dagaalka ayaa isbedelay TPLF iyo OLA uma sahlana inay si fudud uga gudbaan horumar dagaalka oo ay furimaha dagaalka si dardar la ku soo dhaafaan ishardiga furimaha dagaalka waxa garab socdeen waan aan ahayd mid buuran oo ay garwadeen ka yihiin midowga Afrika oo la ayidsan yahay inay ka shidaal qaananayaan iyadoo ay sidaasi tahay waa mid dhinacyada oo dhan ay luudinayaan ma jirto xabad joojin ama wax horumar marka laga reebo shuruudaha darafyada oo aan